salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooro beesha kuumade oo hanjabaad u dirtay oosha habar jeclo garaadadii dhulbaante oo ay ka dhex bawaagtay iyo xildhibaanadii puntland oo la ysku afdhaafay somalilan oo qaramada midoobay ka duraamatay inay gurmad la gaadho maxaabiisteeda ku xidhan laascaanood dooxa cabaad weyne oo la qayaaday dad iyo gaadiid maraykanka oo timaatiyey saldhigyo iiraan ku lahayd gudaha dalka suuriya dagaalka cirka iyo weliba dhulka ah oo dooxatada ku ekaysa suryada khaza hawiye oo beesha daarood kaga dhigay lugteedii puntland oo gambar la isugu fadhiyo istanbuul oo isla hoogsatay iyo erdogan oo gaballa ka caddeeyey inay garab taagan yihiin dadka loo tunka sheegtay madaxweynaha baraaziil oo eedadaba qaaday dooxatada iyo weliba eebbe godka hawnuure abwaan siciid maxamuud gahir oo maanta lagu budigay deegaanka toon wararkaasi iyo wararka dheeraad ayaanu jahaynaayo ku soo dhowaada barnaamijkeena goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga alxaramayn oo ku fududayn doontaa dal iyo dibadba barashada diinteenna suuban kala xidhiidh wixii faahfaahin aleynada shaashada kaaga muuqda alxaramayn qur'aan islaamig online dooxatada ayaa ugu baaqday ciidamadeedu inay ballaadhiyaan howlgallada iyo weerarada dhinaca dhulka ah ee ay ku eekaynayaan ururka mintidiinta ee xamaas ee ka diriraya suryada khaza iyo inta haysa geesta kale fiidmeeraha dagaalka dooxatada ayaa xalay dhulkaasi ka fuliyey duqaymo xooggan oo aan jaadkooda hore loogu soo joogin iyadoo ay guud ahaanba daanta galbeed ee marinka khaza xalay ka bidhaabayeen qaraxyada ay dooxatadu majaasi ka geysanayso ururka xamaas ayaa isaguna sheegtay in dagaal xooggani habeenkii xalay ahaa ka dhacay dhinaca waqooyi ee suryada khaza halkaasoo ay ciidamada dooxatadu doonayeen inay ka soo huluushaan marinkan ooda dhacmeedda laga adkeeyey ururka xamaas ayaa sheegay in dooxatadu halkaasi isugu geysay wixii ay haysay taag iyo tukurba iyada oo u tooga haysa inay mar uun gudaha u galaan marinka khaza ururka xamaas ayaa tibaaxay inay u babacdhigeen islamarkaana ayagahaasi ka bacaraariyeen ciidamadii ilmo nebi yacquub ee ku gaadhnaa dabka iyo baaruudda aan yarayn waxay bitiyeen inay majaasi ku belbeliyeen gaadiid aad u badan oo ay ciidamada dooxatadu adeegsanayeen sidoo kalena ay ku dileen tiro badan oo ciidamada duulkaasi ka mid a wararka ayaa sheegaya in qaybo badan oo ka mid a ciidamada dooxatada iyo weliba taangiyo tiro beel ah oo ay dembaabi jireen uu xalay ururka xamaas gacan wax kaga wanaajiyey waxaa sidoo kale la arkayay afhayeen u hadlayay ciidamada difaaca dooxatada oo xalay warbaahinta u dibinjaaqay kaasoo dadka degan magaalada khaza ku wargelinaya inay halkaasi iskaga xaymartaan isla jeerkaasna ay xamaamadooda ka urursadaan isla jeerkaasna ay isugu biyo shubtaan dhinaca koonfureed ee suryadaasi si ay uga badbaadaan duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee haatan ka heelimaasaya khaza iyo cawaankeeda ila wareedyadii iyo weliba isgaadhsiintii ka howlgelayay marinka khaza ayaa iyaguna habeenkii xalay ahaa mar keliya hoos u dhacay amaba hawada ka baxay taasoo loo qaatay in dadka ka ceelaya suryada khaza laga gooyey margoogta internetka dadyowga isu tegay ee qaramada midoobey ayaa iyaguna baaq dheer u diray labada dhinac ee majaasi gamasyada isugu nacaya iyagaoo ka duraantay inay gebi ahaanba si deg deg ah oo aanay ku xidhnayn wax guntina ama fitiliga ay ku joojiyaan xabadda halkaasi ka seeraaraysa si kaalmo loo gaadhsiiyo dadka ay colaaduhu rubaha dhigteen sida la sheegay 120 dowladood ayaa gacanta u taagay go'aankan dabka lagaga dhigayo dooxatada iyo ururada reer falastiin islamarkaana nabadda lagaga dhalinayo marinka khaza ugu dambayntii ciidamada dooxatada ayaa duqaymo ka waday marinka khaza teer iyo 7 bishan aynu ku jirno ee haatan gabaabsiga ah taasoo salka ku haysay weeraradii ururka xamaas horraantii bishan ku dhuundhabay in ka badan 1400 oo qof madax madow oo reer talabiib ah sidoo kalena uu ku qafaashay tiradhan 229 qof oo kale si kastaba ha ahaatee wasaaradda fayadhowrka falastiin oo uu ururka xamaas dembaabo ayaa sheegtay in 7,000 oo qof oo falastiiniyiin lagu gaban waray marinka khaza teeriyo markii ay ciidamada dooxatada ogahaasi ka bilaabeen dabra weerarada aargoosiga ah ee ay ururka xamaas ku soo ekeeyeen waxay sheegtay in 7,000 ee qof ee ay ciidamada ilmo nebi yacquub qoorta ka jareen ay 5,000 oo ka mid yihiin dumar iyo gurbood ay gamasjo ku habsadeen guryihii ay cawsan jireen weli halkaad nagala socotaan waa taar t v maraykanka ayaa isaguna duqiyey 2 goobood oo hub iyo rasaas iyo weliba saanad ciidan ugu kaysanayd jamhuuriyadda kacaanka ee iiraan kuwaasoo ku yaalay gudaha dalka suuriya xukuumadda washington ayaa tibaahday inuu duqaymahaasi ay helcelin u ahaayeen weerar ay kooxaha ay taageerto xukuumadda tehraan la beegsadeen saldhigyada uu maraykanku ku leeyahay dalalka ciraaq iyo suuriya
maraykanka ayaa damuuniyey in ciidamada maraykanka ee fadhigoodu yahay gudaha dalka suuriya ay goobahaasi u bartilmaameedsadeen ka gadaal markii ay dhowaan dabra weeraro iyo dooyo ku soo ekeeyeen xarumaha ciidamada maraykanka ee ciraaq iyo suuriya kooxaha iiraaniyiinta ee ay tabada ka durbaadhiso xukuumadda gacaanka iiraan. sidoo kale xukuumadda ine bayden oo arrintaasi war ka soo saartay ayaa iska soo galluubtay inaanay digamuraaska labadaasi xarumood wax luga ku lahayn dagaalka haatan ka gilgilaasaya bariga dhexe, gaar ahaana marinka khaza iyo inta hayse ee idifka iskula jiraan dooxatada iyo ururka xamaas. xukuumadda ka arrimisa tehraan ayaan iyaduna ilaa iyo hadda ka dibinjaaqin tallaabadan uu maraykanku ku sheegay inuu ku burburiyey cabuudho ay toonsanaayeen hub iyo rasaas ay iiraan xayiigtooda leedahay. wararka iyaguna ka imanaya magaalo xeebeedda berbera ayaa sheegaya inuu daalsaleebeeyey amaba la sara tegay gebi ahaanba cabuudhihii, waabihii, dergadihii iyo bayluulidii ay dadka reer berbera ka soo toosi jireen. duqa degmada berbera cabdishakuur cidin ayaa warbaahinta u sheegay in guri kasta uu daadku galay. wuxuu sheegay inay dowladda hoose ee degmada berbera fadhiga ka hinqatay oo u gurmatay dadweynaha ka ceelhaya gudaha magaalada berbera, kuwaasoo ay daadku hadatiiriyeen. wuxuu sheegay hebelkay cidin in dadka reer berbera markii horeba ay ahaayeen wax walbaaley, xantaa tuluq, waxmahaysato, feenato, xamaalato, xawawarato, kalluumaysato, gaxashgurato, manaagato, adamiyaysato, alaaqaysato iyo danyar huluulan jirtay guryo duuga oo daalay. wuxuu sheegay in dadku markoodii horeba xaalkoodu ahaa geeljabanow calal haye. wuxuu bitiyey in iyaga oo markoodii horeba ooyayey ay haatanna weyli ku joogsatay. wuxuu sheegay in iyaga oo abbo hore leh uu fadno xululiyey. dhinaca kale daad soo rogmaday ayaa la sheegayaa inuu dhufsaday ama la sariitay gaadiid maraayay dooxa cabaadweyne, kaasoo u dhigay halka dooxa waaheen bad waqooyi kaga daro. wararka ayaa sheegaya in la helay qalfoofkii laba gaadhi oo ay biyuhu baariga ku qaateen, balse aan ilaa iyo hadda lahaynin raq iyo ruux meel ay dhigeen jaan iyo cidhib dadkii gawaadhadaasi saarnaa. mid ka mid a wadayaashii baabuurtan watay oo lagu magacaabo maxamed cabdilaahi cigaal sandheere ayaa laga yaahinaya duleedada daraygodle iyo dooxa cabaadweyne, iyadoo dhulkaasina laga yaahinayo nolol iyo geeri waxa uu ku sugan yahay. weli halka aad nagala socotaan waa taar t v. beesha kuumade kablalax oo ka tirawday ceelka jigjiga iyo inta haysa ayaa isla soo taagtay inay geli doonaan ama ay iman doonaan meesha la yidhaahdo laascaanood iyo inta u dhow. waxay sheegeen inay halahala u geli doonaan dagaalka la filayo inuu dhowaan ka heli maaso bariga gobolka sool. waxay tilmaameen inay ruuban doonaan dagaalkaasi oo aanay beesha daarood u kala hadhi doonin sidii ay wax uga tari lahaayeen, ilan waa la yidhaahdaaye. suldaan cabdiraxmaan duulane rafle guureed oo warbaahinta soo duusaday ayaa ku tutuweeyey in beesha habar jeclo ay tahay tan wadda aabiga, adyadda gardarrada, gefka mudarrada, daandaansiga iyo toorodhoolweynta lagu falaayo duulka huwan la yidhi ee uu horadulbo hebelkay firdhiye. wuxuu tilmaamay inaanay beesha kuumade hore u gelin dagaaladii ka tirfaandhabaya gobolka sool, iyadoo la ogaa inay halkaasi kaga dhinteen saraakiil xigeenno iyo ciidamo tiro badan oo beeshaasi ka soo jeeda, kuwaasoo ay jeebabka ugu jireen aqoonsiyadooda, iyagoo sidoo kalena askar badan gacanta lagaga dhigay. dhowr goor oo hore ayay garaadada bariga sool iyo madaxa maamulka cantadabka ee laga amaamuday bariga magaalada laascaanood ku celceliyeen inay beesha habar jeclo tahay hoombaro libaax bay soo waddaa, jacaylkuna hadduu yahay way hayaa. dhinaca kale kala taganaan baasan ayaa la sheegayaa inuu soo kala dhex galay duulka garaadda la yidhi ee beeraha dhulbaantay, gaar ahaana garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale kaarshaneeqle iyo jeedh uu hogaamiyo gala dagaalku. arrintani ayaa timi kadib markii uu garaad jaamac garaad ismaaciil uu dawaadda ku duugay 17 mudan ee beelaha dhulbaante ku yeelan doonaan ceelka garoowe, taasoo ka cadhaysiisay dhammaanba dadyowga kale ee ka soo horjeeda in wax lala yeesho maamulada puntland iyo somalilan. waxaa la sheegayaa in cabdirisaaq khaliif axmed dawdar iyo garaadkiisu ay ku wada socdaan soo xulista xildhibaanada beelaha dhulbaante ugu biiri doona baarlamaanka puntland, maadaama oo ay kuwii hore muddadoodii dhammaysteen. in la wadi jirayba arrintaasi ayaa soo waldaamisay in gabadh la isugu soo fadhiisto, isla jeerkaasna la yska dhaleeceeyo baraha bulshada ee ay dadku istocodsadaan. iyaduna xukuumadda somalilan ayaa ku baaqday in wararka rigliga ah ee ay ka helayso ceelka laascaanood iyo cawaankeeda uu muranka iyo muumalkaba ka saarayo in macluul, targoof, indhategid, jiciirasho iyo wax la midi ay soo food saareen maxaabiistii lagaga qabtay ciidamada somalilan dagaalkii 25 bishii 8 ka dhacay ceelka laascaanood. somalilan ayaa shaaca ka qaaday inay qarka u saaran yihiin maxaabiistaasi inay haleelaan xanuunada shubanka, calool socodka, daacuunka iyo waxyaalaha la midka ee ay soo dedejiso cunola'aanta iyo fayadhowrxumadu. waxay tilmaantay in 3 xilli ee wax la curaagto ay maxaabiistaasi wax dhadhamiyaan hal mar oo keliya, kaasoo aanay weliba helin wax ku filan. somalilan ayaa ugu baaqday dadyowga isu tegay ee qaramada midoobey la yidhi inay xidhanayaashaasi u gurmadaan, islamarkaana ay si deg dega arrintaasi uga howlgalaan.
waxay ka duraamatay in sida ugu dhaqsaha badan majaasi loo gaarsiiyo silsiliya kow lagu bakti afuufo maxaabiista halkaasi ku qabiran maadaama aanay duulka uwan la yidhi haatan iska furin oo iska faydin sidaa awgeedna aanay awood u lahayn inay maxaabiistaasi wax taartaan ama waxsiiyaan somalilan ayaa u soo jeedisay qaramada midoobey inay xil iska saarto sidii loo soo samata bixin lahaa ilmidhiglaha somalilan ee goobtaasi ku hawdgalan sidoo kale xukuumadda madaxweyne biix ayaa isla soo jacfeerisay inay qaramada midoobey damadooda tahay wixii soo gaadha maxaabiistaasi islamarkaana iyaga lagala xisaabtami doono intaa waranay waxaanu ku darna ma ogin wax weydiin ogaalka sheegna maxamed aan tirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nool konte la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121